maamulka hoose ee degmada Balad Xawa ayaa mamnuucay qarashaadka faraha badan ee ku baxa aroosyada iyagoo doonaya in la fududeeyo guurka. Shuruudahani cusub ayaa waxaa ka mid ah inaan 3 neef ka badan la qowrici karin aroosyada. Sidoo kale waxaa la mamnuucay in guryaha arooska la dhigo wax kuraas fadhi ah, halka lacagta sooriyada lagu sheegay inaysan ka badan karin $100 oo kaliya. Baabuurta lagu galbinayo arooska iyo aroosada ayaa lagu sheegay inaysan ka badan karin 3. Buraanbur iyo xafladaha ayaa iyagana la mamnuucay. Ragga ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu maamulka qaatay, iyagoo sheegay in tallaabadani ay anfacayso rag badan oo guurdoon ah balse ka baqi jiray inay u babacdhigaan qarashaadka guurka. fikirka isaga ah waxaan u arkaa inuu yahay mid bulshada degmada Balad Xawa anfacay. waxaana ku talin lahaa mujtamaca kale ee gobolka intiisa kala degan in arintaasi ay gaarto, waayo wax dadka dan u ah dib badan looga baxay. maamulka ereyga ka dhawaajiyaan oo guurka ah maadaama dhalinyarada ay la fududeeyay, marka aniga ahaan fikradeyda waan ku soo dhaweynayaa maamulka, waan ku faraxsanahay waxay sheegeen. Hooyooyinka ayaa sidoo kale dhankooda soo dhaweeyay go'aanka maamulka. Diyaad baan u soo dhaweynayaa barnaamijka maanta laga dhawaajiyay, sababtoo ah wiilku wuxuu wataa $3,000 ugu badnaan ninka ugu badan. waxay tiri dahab baan rabaa, wareeg baan rabaa, fadhi carbeed baan rabaa, daahyo kala bedel aan rabaa, sariir waxaan rabaa $1,000. waxaas wax jira ma aha. Dhanka kale gabdhaha ayaa ku tilmaamay go'aanka maamulka mid nasiib darro ah, iyagoo sheegay in xaqoodii lagu tuntay. arinta oo maamulka ka dhawaajiyay waxaan u aragnaa arin qalad oo lagu xadgudbay hadii aan gabdhan waxaa la xuquuqdeena dhinac looga dhacay. ikhtiyaarkada iskale waxa dooranaysid adaa iskale, maxay ahayd hadii la waxa saleeyay oo inta waxa saleeyay oo masta laga dhigo waxa loo arkay inay xuquuqdeena lagu ciyaarayo, waan ka soo horjeednaa arintaas. Maamulka ayaa sheegay in sharciga cusub ay ogol leeyihiin inay fududeeyaan guurka, balse su'aasha taagan waxay tahay in uu dhaqan gali doono iyo in kale. Axmed Cabdirashiid Xaaji, RTN.